Wacan wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka tiknoolajiyadda adduunka. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa muuqaal ku saabsan maalmahani barnaamijka lagu magacaabo Metaverse. Waa maxay Metaverse? Metaverse waa duni qiyaasisan iyo adeeg 5G internet ah. Adeega 5G ee isgaarsiinta internetka casriga ayaa dunida kusoo kordhin doonta adeegyo iyo qaab nololeedyo cusub oo ay shirkado weyn isu diyaarinayaan sidii ay la falgali lahaayeen macaamiishooda uguna soo kordhin lahaayeen adeegyo cusub. Shirkadda magaca bedeshay ama adeega cusub u jihaysatay ama Facebook oo keliya waxaa la mid ah shirkadda Google iyo kuwa kale. Degsiimada iyo adeega Metaverse waxaa sabab u ahaa natiijada musiibada cusub ee COVID-19, maadaama ay dad badani bilaabeen inay gurigooda kasoo shaqeeyaan, dadana iskuuladana xaadiraan iyagoo gurigooda jooga. Markaa waxaa kordhay baahida loo qabo siyaabo kala duwan oo loo sameeyo isdhexgal dadka oo online ah, gaar ahaan mid ku dhisan nolosha khiyaaliga ah oo ay noqon karaan dad hal meel isla jooga oo kale. Macnaha Metaverse waxaa loola jeedaa, haddaan si kooban idinku soo sheego, waa erey guud oo tilmaamaya isla wadaagis bay'ad ama duni ku dhisan khiyaali oo dadka ay ku wadaagi karaan internetka dhexdiisa ah. Cajiib! Dadka ayaa awood u yeelan doona iyagoo kala fog in ay si khiyaali ah iskula joogaan magaalada, iskuna raaci karaan, wada shaqayn karaan, wada baran karaan, isla soo adeegan karaan, hal film isla daawan karaan iyo wixii la mid iyagoo kala fog balse si khiyaali ku wada jooga. Waxaa jira nooc gaar ah oo Metaverse kaas oo isticmaala tiknoolajiyada loo yaqaan blockchain oo aad ku iibsan karto hanti meel kasta oo aad dunida ka joogta. Lacag loo yaqaanay cryptocurrency sanduuqeeduna yahay blockchain wallet. Sidoo kale fanaaniinta ayaa awood u yeelan doona inay samayn karaan bandhigyo iyo riwaayado iyagoo ku dhex jira meel la isu lansado oo dunida khiyaali ka mid ah. Tusaale ahaan, bishii Sebtembar malaayiin dad ah ayaa daawaday oo ka qayb galay bandhig fanaanka Ariana Grande si dhab ah ugu soo bandhigay Fortnite. Ciyaaraha bukaanada bukaan socodka loo yaqaan ayaa awood u yeelan doona inay booqdaan isbitaalka oo ay doonaan oo isticmaalaan adeega kulmada dhakhtarka jooga Mareykanka ama dunida inteeda kale, kana daaweyn kara xanuunada qaar sida inuu xaalado isku arko, ka wareysan karo adiga oo meesha ku xanuunaysa aad seedo ama aad tusi karto si aad soo joogtaan, markaana uu daawo ku qori karo. Shirkadaha caanka ah ee soo saara dharka, gaar ahaan kuwa adduunka ugu waaweyn ay ka mid yihiin shirkadaha Nike iyo Adidas, ayaa sameynaya dhar casri ah kuwa oo ay dadka ku iibsan karaan ma dhex xiran karaan dunida khiyaaliga ah dhexdiisa ah. Tusaale, qof asxaabta ka mid ayaa arooskiisa ku dhigan kara tiknoolajiyadan casriga dhexdeeda. Markaa waxaad awoodaa in aad dhar qaali ah si khiyaali ah ugu iibsato arooskiisana aad uga qayb gasho adiga oo hawada maraya. Waxyaabaha kale ee 5G soo kordhin doona waxaa ka mid ah in aad gaariga u diri karto inuu keligii isbaakin gareeyo ama uu yimaado albaabka isaga isku kaa furo, islamarkaana uu isagu ku wado adiga oo cabsi ka qabin shil gaari, maadaama ay dhammaan gawaarida iswada akhrin doonaan ay og yihiin xaddiga ay isu jiri karaan mustaqbalka dhow. Metaverse waa isbedelka dunida ee hadda, isiguna aan weli qeexid loo hayn. Waxaa ku dhisnaan doona xaddi duni khiyaali ku dhisan. Mahadsanidin.